sheekh waxay leedahay waxaan joogaa Mareykanka waxaan hadda ogaaday inaan ku bilaabay soonka anoo jiro 15 jir laakiin waxaan ku qaangaaray dabcan waa gabar waxaan ku qaangaaray 9 sano qaladkana waxa lahaa ehelkayga marka waxyaabo soonkii hore dhaafay maxaan ka sameeyaa bismillaahir rahmaanir rahiim mas'uuliyaddu waxay saarnayd dadkii waalidka ahaa in ay caruurta baraan qaangaadhka iyo waajibaadka ka dhasha arintaasi marka khaladkeeda waxa iska lahaa waalidka mas'uuliyadda dayacaan Allah tabaaraka wa ta'ala wa quraanku yiri yaa ayyuhalladheena aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara gaarahaan hooyooyinka waxa loo baahan yahay gabdhaha inay baraan intaysan qaangaarin maxaa lagu qaangaaraa ilaan inta badan waxa laga yaabaa inay da' u moodayaan 15 inay gaaraan inay baraan qaangaarka markii gabadhu qaangaadhana inay baraan kaliya ma aha waajibaadka ku saaran xataa sidii ay ula dhaqmi lahayd dhiiga caadada iyo istaahirintii iyo ahkaamta ka dhalanaysa iyo caruurta iyagoo yaryar hadaan loo sheegin waxyaalaha loo sheegin sidan oo kala dhacaysa gabadh 9 jir ku qaangaadhay oo 15 sano markay jirto ogaatay inay qaangaar tahay muddada inta la eegna waajibaadkii dayacaysay waa runtii nasiib xumo waalidkaana mas'uuliyadda iska leh waxa leenahay gabadhaas soo qalle sanadahaas ka tagay sidii kolba aad u awoodo soomankii ka tagay soo cel insha Allah ta'ala soo qalle wallahu a'lam jazakallahu khayral jazaa sa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh qof ishalmaamay isagoo sooman wuxuuna rabay inuu wax cuno ama cabo miyaan ka celiyaa mise waan u daayaa maadaama uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri ruuxaasi ishalmaamay hadduu wax cuno ama cabo ilaahay baa quudiyay ruuxa ishalmaama oo halmaanka dartii cunto ama cabitaan wixii soonka jabinaya sameeya sax asagu waa salmaansan yahay oo dambi ka soo gaari maayo waana macna nabiga sallallahu alayhi wasallam soonkiisa hawato ilaahay baa quudiyay oo cabitaanka siiyay laakiin macnaheedu ma aha ruuxa arkayay ha fiirsado oo ha u daayo ma aha macnaha waxa laga wadaa dambi ma leh isagu dambi ma laha maadaama uu salmaansan yahay laakiin ruuxan og inuu sooman yahay ee arkaya isagoo sooman inuu salmaansan yahay oo cunto cunayo waxa loo baahan inuu baraarujiyo waxa la mid oo kale to ruux salaad tukanaya oo salaadiisi khaldaya oo kale waa inaad baraarujiso yani ruux muxuu ahay jahli iyo aqoon darro ay u geynayso dambi galay hadaad aragto waa inaad baraarujiso tiraado sax ma aha iska daa marka waxa way baraarujintu waa mas'ala kale ilaahay baa cunto siiyada waxa laga hadlayaa bi macnaa ruuxani dambi male soonkiisina ma jabin laana waa ishalmaansan yahay halmaanka iyo ismootiiskana ummadan ilaahay waa ka koryeelay la tu'akhidna in nasina wa akhtana fi sahih muslim qad fa'altu walid tabaaraka wa ta'ala waa idin ka yeelay inaana idin qabanin wax halmaan idin ka dhacay iyo ismootiis wax idin ka dhacay marka isaga loo qaban maayo laakiin ruuxa arkaya waa inuu baraarujiyo warwaad soomaneed waa inuu xusuusiyo wallahu a'lam jazakallahu khayran sa'iladan waxay leedahay sheekh ninkayga ayaa hadda ka hor igu furay 2 dalqadood muddo kadib haddana wuxuu igu furay hal dalqad ah waxa ka soo wareegtay 2 sano inta isaga ayaan waxa yirnaa oo ilaaha waan ku qabaa anna waxaan ku iri saddexdii way ku dhamaatay sheekhowna kala bixi maxaan sameeyaa ومسألة خلافية وهي تلقضه ما إسراعان مش اسم الرعان لو جور بي من لو بدل القضاء دعدي بدنا مد دعدي مركا لو بدل القضاء أي دعان لو بدل القضاء ما إسراعان مش مد بالغ السوق قضية ومسألة خلافية وهي فوق هذا بدن كود وحي قوان إن القضاء إسراعيان والله هدي اللي هذا لو بدل وضع عيان صدح هدي اللي هذا صدح إسراعيان madhabka markii la qabtana gabadha wax ku laabani ma jirto dalqadii way dhamaadeen markii madhabka la qabto fuqaha badan baana sida qaba madhab kale jiro oo ilaa xilligii saxaabada jiray oo dhahaya dalqaduhu isma raacaan oo hadii saddex la yiraahdo mid baa dhacaysa hadii laba yiraahdo hal un baa dhacaysa muxuu ahay waana madhabka daahirka quraanku ku tusayo at-talaaqu marratan
يعني وحوي طلاق هوينك لوgu noqon karayo waa laba goor rajciga laga hadlaya talaaqu dalaaqa dumarka la soo xishan karo waa laba goor lama dhihin dalqataan waxa la yiri marratan wayna kala duwan yihiin yani luqada carabiga marratan iyo dalqataan kid alqadi saddexaad ba marka gadaal laga sheegay fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayru marka saddex dalqadood oo kala go'an buu quraanku sheegay حديث النبي في صحيح مسلم نوت المامية سيداس دراديد مذهبك إلى حق بدن وحوي هاي إن يسند القدوه إسراع أو أي علماء بدن إياد لفتي قبان صحابة إن بدن وكمد أي قبين ظاهر كقرآن كنا كم مقدة حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كسر أوري مركا مذهبك هدي لقبته القدوه اسم الرعان وحين نقول إسا نينكو هدو كبرد كل لابتي intaynan yani furitaankii dambe ciidadiisii intaysan dhamaysan haduu soo ceshaday madhabka dambe hadii la qabto dalqad baa markaa u soo noqonaysa marka ninbu u yahay iyaduna xaaskii way yani xaas bay u tahay oo xarigii dalqadaas soo noqonaysa hadii uusan soo ceshanin oo furitaankii dambe markuu sameeyay intayna ciidada ka bixin uusan soo ceshaninna tii markaasi way dhamaatay oo way baa'intay iyadoo muxuu ahaay dalqadi laaban tahay bay ciidadii ka baxday way baa'intay marka xor way marka way guursan kartaa asaga markuu leeyahay muddada inta leeg xaaskaygii baa tahay muxuu ku doodayaa isweydiin leh ma dalqadii horu dood ka qaba war waan ku soo ceshaday buu leeyahay waxa u baahan tahay in la fahmo wallahu a'lam jazakallahu khayran khayral jazaa saailadan waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabar uur leh oo joogta Yurub saacadii baa nagu dheeraaday oo sinaba waan u soomi waayay marka ma maskiin baan quudiyaa mise dib baan ka soo qaleeyaa marar badan baan runtii ku celcelinay shariicada Ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu jecel yahay hadduu wax fududeeyo fududeyntiisa in la qaato sida uu u jecel yahay casiimada in la qaataba fududeynta in la qaatana waa jecel yahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamayo shariicada taysiirkeeda waxa kamid ah fududeynteeda waxa kamid ah gabdhaha uur kale iyo kuwa nuujinaya way afuri karaan xadiid khaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam kaga hadlay oo uu leeyahay ilaahay waa ka dajiyay haweenta nuujinaysa iyo midda uur kale soonka waa ka dajiyay way afuri karayaan haddii waqtigu ku dheer yahay oo hadda sida Yurub iyo meelaha ka jirtana kuma sii jirtaba haddii soonkii isku wadi weydo ama iyada lafaheeda u baqdo ama ilmahan ay nuujinayso ama ka uurka ay ku sida u baqdo ama iyaduba ay ku rafaadayso soonka way iska afuraysaa kadibna xilliga jaanis shobay soo qaleynaysaa wallahu a'lam jazakallahu khayran khayral jazaa saailkan wuxuu leeyahay sheekh nin waalan ayaa kufsaday gabar uur bayna yeelatay canug ayay dhashay canuga garac miyuu noqonayaa maadaama ninka uu waalnaa takaaliifna aysan saarnayn niyadiisuna aysan ku jirin inuu zinaysto ama xumaan uu sameeyo laba arrimood baan kala qaadaynaa dambi ma meeshii ka dhacay iyo ilmaha xukunkiisa xagga dambiga ninkan waalana dambi male gabadha la xoogayna dambi male laana iyadana waa mukraha ruuxa muslimka ana wixii lagu qasbo oo loo xoog sheegto dambi ka soo gaari maayo asaguna waaba majnuun oo waa waalan yahay qalin ma saarna saas daraadeed falka meesha ka dhacay dambi kama dhalanayo la dhanka gabadha la boobay wala ninkan waalantoona ama ilmaha markii la yiraahdo ilmuhu waa garac laana ilmaha inuu garac noqdo aabalaan inuu noqdo waxay ku xiran tahay oo kaliyeeta labadan ruux ee isu galmoonay xarig ma ka dhaxeeyay xarig sax ma ka dhaxeeyay intaas ku xiranta hadduusan xarig sax jirin ilmuhu waa ilmo aabalaan allahumma hal xaalo hadii uu moodayay inay xaasu tahay oo shubha dhacday oo ismoodsiis dhacay ama nikaax faasida ugu galmooday oo marka uu moodayay inay xaasu to xalaal u tahay markaasi wax weeye ilmaha waxa laga dhigay ilmo sharci ah bimaana wax weeye shubhadaasi ismoodsiiska ugu galmooday ayaa ilmaha ka badbaadinaya inuu aaba la'aan noqdo aaba yani wax weeye ninkaas marka aaba ilmo sax uu noqonaya ilmo sharci uu noqonaya xaaladaas marka laga reebo asal ahaan ilmaha waxa aaba u yeela waa xariga maadaama ninkan gabadha boobay waalan
iyo gabadha uusan xadhig u dhaxaynin ilmuhu waa ilmo aan sharci ilmo aan aabba lahayn waay wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa sheekh labada su-aalood ee ugu dambeysa darsigeenan maanta tan koobaad darsiga intaad ku jirtay baad ka jawaabtay waxay ahayd labada suuradood ee hadda aan soo marnay ghaashiya iyo sabix isma rabbika laclaa marka la dhammeeyo in la yidhaahdo calayhi salaam iyo allahuma xaasibna xisaaban yasiiran su-aasha ugu dambeysa waxaa weeye cadaygu soonka ma jebiyaa qolo wadaado ah ayaa igu yidhi wuu jebiyaa allahuma xaasibna xisaaban yasiiran iyo maxay suxuf ibraahim wa muusa calayhi salaam in la yidhahdo suurat laclaa dhammaadkeeda suxufi ibraahiima wa muusa calayhim assalaam ma soo aroorin meesha bidaat suuradda marka la dhammeeyo in halkaa la yidhaahdo calayhim assalaam oo halkaasi lagu khaas yeelo ma soo aroorin laakiin waxaa sugan inuu nebigu yuri sal alla alay wasalam sida aada iigu salinaysaan ee a'immada ugu saliya marka waxaan u jeedaa ambiyada marka waxaa fiican ambiyada haddii aad magacooda marto inaad ku salido laakiin meeshaa khaaskoo suuraddu markay dhammaato ama soo aroorin mana sugna kadalika suurat lghaashiya markay dhammaato ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum allahuma xaasibna xisaaban yasiiran ma soo aroorin yadan halkaa kuma soo aroorin waa khalad halkaa in la geliyo balse waxay ku soo aroortay saan yani suuratu inshiqaaq markaan soo maraynay soo sheegnay nebiga xadiidka caaisha ay ka warinayso sujuudda ayuu nebigu ku ducaysan jiray allahuma xaasibnii xisaaban yasiiraa ama suuradda dhammaadkeeda in la yidhaahdo iyaduna ma sugna nacam masalada ku saabsan cadayga ruuxu markuu sooman yahay soonka ma jebiyo wax culimoo yidhi cadowgu soonka waa jebiyaana ma jiro allahuma haddii cadayga wax ka dhashay aada liiqdo meesheeda waay laakiin cadayga ka caday keliya ah soonka wuu jebiyaa wax culimoo yidhi ma jirto keliyata imaamu shaafici iyo madhabka shaaficigaabaa waxay karaahaysteen gelinka dambe ruux markuu sooman yahay inuu cadayday karaahaysteen waa karaaha waay waa karaaha jebin ma aha labadaa in la kala fahmay u baahan tahay imaamu shaafici markuu karaahadaasi cabirayeyna wuxuu ka qaatay xadiidka nebigu leh sal lay wasalam lakhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allah yacni khuluufka ruuxa sooman afkiisa ku yaala ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon miskiga ilaahay baa jecel marka wuxuu leeyahay imaamku oo masalada uu ku dhisay yani khuluufkii ilaahay jeclaaya afka ku yaalay ayuu cadaygu tirayaa waana wax daaca ilaahay ka dhashay yani shayga daacada ilaahay ka dhashay ilaahay jecel yahay udgoon in la zuuliyo ma aha buu leeyahay saasuu u karahaystay laakiin dood baa ka jirto a'immada kale waxay ka doodayaan oo leeyihiin khuluufkani sideedaba wasakhda afka ku taalle cadaygu tiraya ma aha wasakhda afka ku taalla ama ilkaha ku taalle cadaygu uu baabi'inayo khuluufka taa lagama wado ee khuluufka waxaa laga wadaa calooshu markay madhato ayay waxay soo saaraysaa qaac ama hawa ka soo baxaysa qaacaasaa marka afka isbedelkiisa keenaya kaasaa waxaa la yidhahdaa khuluufka marka almuhim waa fahamkaas imaamu shaaficina si u qaatay culimmada kalena si u qaateen mas'aladuna xataa imaamu shaafici iyo madhabka shaaficiga ma dhaafayso inay tahay inay karaahaysteen amaa soom baa jabaya ma ay lahaa nebigu markuu lahaa sal alla alay wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak cinda kulli wuduu yani ummadayda haddaana ka baqayn inay ku rafaado ku dhibaatooto waxaan amri lahaa inay mar kastay weysaysanayaan ay cadaydaan inay cadaydaan yani muusan kala saarin nebigu sal alla alay wasalam ruuxa sooman iyo kaan soomanayn gelin dambiya gelin hore ma kala qaadin nebigu sal alla alay wasalam amaa fahamka waa xadiiskaas oo culimmadu midba si u fahmay waana fahamka imaamu shaafici mana aha soom baa jabaye waa masaladu waa karaahaysanayaa waaye ciladuna wax weye wuxuu leeyahay udgoonkaasaa meesha ka baxaya ee soom baa jabaya ma aha wallahu aclam